بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدومية كحيجين مدنياشا قراء الشعبك howlwadeennada golaha shacabka marti sharafta maanta nagala joogaan xukuumadda bahda saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane guddoomiye mudanayaal waxaan halkan idinkaga soo jeedinaynaa warbixin dhammaystiran oo la xiriirta shirkii baarlamaanka carbeed kalfadhigiisii afaraad xildhibaanada matasha baarlamaanka Soomaaliyeed warbixintaas oo ay soo diyaariyeen xubnaha kala ah mudane Maxamed Cumar Dalxa isla markaana xubinka ah guddiga arrimaha dibadda siyaasadda iyo amniga qowmiyadda carbeed اللجنة شؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي العربي لبا مدن محمد عبد الله فارح قيله وكثير سن قدق أرمها بقالها إيو مالية اللجنة شؤون الاقتصادية والمالية للبرلمان العربي سدح مدن إسماعيل عبد الرحمن شيخ بشير وكثير سن قدق أرمها شروع حقوق آدنها اللجنة شؤون القانونية وحقوق الإنسان للبرلمان العربي أفر مرو نعيم محمد قعل وكتر سن قدق أرمها بلشدة هوينك إيود الليرة برلمان كعربيت اللجنة شؤون الاجتماعية والمرأة والشباب للبرلمان العربي هذا بشير كان أقول له قبتي مقالة قاهرة عاصمة الدلك عن والالان ماي مصر تضبي طبنكي سعودين إلى لباتنكي جون لبكون سقالي طبنك قنتن كان قدما وحال غفا غذي أمور بدن أو آد حساسي أوه كواسو كترجمة يدمان قضية ومدوينة عربيت وحانا كامدة كو قضية فلسطين iyo dhibaatada joogtada ee Israel ku hayso laba dagaalada sokeeye ee u dhaxeeya Liibiya sidii xal looga gaari lahaa saddex Yemen iyo dawladda sharciga ah ama Yemen dawladda sharciga iyo xuutiyiinta mucaaradka ay taageerayso dawladda Iran sidii wax looga qaban lahaa afar Suuriya oo aan weli saldhigin siyaasad iyo amni ahaan iyo loolanka u dhaxeeya dawladaha gobolka iyo kuwa waaweyn ee Yurub iyo Ameerika shan isbeddelka siyaasadeed ee ka dhex jira ama isbeddelada siyaasadeed ee ka dhex jira Algeria iyo Suudaan oo madaxweynayaashoodii xukunka laga tuuray lix xal u helidda khilaafaadka u dhaxeeya dawladaha Carabeed gaar ahaan dalalka Khaliijka toddobo qadiyadda muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kaasoo bayaan cad laga soo saaray oo looga digayo inay Kenya ay ka waantowdo sheegashada biyo badeedka Soomaaliya oo ka mid ah biyaha dunida Carabta ayna joojiso sheegashadeeda beenta ah iyo khariidada bugta ah ee ay kula dhexmeeraysanayso adduunka si ay u marin habaabiso raayil caamka ayadoo ku xadgudbaysa weliba xeerarka iyo heshiisyada heer gobol iyo kuwa heer caalamiintaba mudanayaal iyo marwooyin ama
saaxiibayaal waxaa baarlamaanka carbeed dhinaca kale uu ammaan iyo bogaadin u soo jeediyey dowladda federaalka iyo shacbiga Soomaaliyeed horumarka ay ku sii tallaabsanayaan dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo bulshada. wuxuuna sidoo kale bogaadiyey guud ahaan dowladda Soomaaliyeed iyo in lala garab istaago ilaalinta qarannimadeeda, midnimadeeda iyo sugidda badqabka dhulkeeda, hawadeeda, baddeeda iyo khayraadkeeda intaba, gacanna lagu siiyo la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeedda intaba. mudanayaal iyo marwooyin, iyadoo goluhu qodobo kale oo aad u fara badan uu ka dooday, wuxuu baarlamaanka carbeed go'aamo iyo bayaan ka soo saaray qadiyadaha kala duwan ee 22 dalal ee carbeed. mudane guddoomiye, mudanayaal, waxaan soo jeedinaynaa haddii aan nahay xubnaha u matasha baarlamaanka carbeed ee afarta ah: kow, in baarlamaanka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ay mahadcelin ballaaran ee walaaltinimo ku dhisan ay u diraan baarlamaanka carabta sida uu isu barbartaagay qadiyadda badda Soomaaliyeed ee ay isku hayaan Kenya, taasoo dhabarjab ku ah cadowga Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba. laba, in la joojiyo ama in la xoojiyo xiriirka aan la leenahay baarlamaanada adduunka si qadiyadeenna aan u gaarsiino shucuubta kale ee caalamka, warbaahintuna ay qayb libaax ka qaadato. saddex, inaan la dayicin fursadaha ka qaybgalka shirarka baarlamaanada adduunka, kuwa heer gobol, isla markaana ay goluhu ama golaha shacabka iyo xukuumaddaba federaalka ay u fududeeyaan xildhibaanada wixii safaradooda la xiriira ee xuquuq ah ee ku qeexan xeer hoosaadka kuna astaysan miisaaniyad sanadeedka ee uu ansixiyo baarlamaanka. xukuumadda federaalkana looga baahan yahay inay dhaqan geliso. wabilaahi towfiiq. waxaa soo diyaariyey xildhibaan maxamed cumar dalxa, 2 xildhibaan maxamed cabdulaahi faarax, 3 xildhibaan ismaaciil cabdiraxmaan sheekh bashiir, 4 xildhibaan naciima maxamuud gacal. isla markaa asagoo tixgelinayo guddoomiyaha baarlamaanka codka golaha shacabka iyo sida sharafta leh ee ay noo garab istaageen walaalaheenna carbeed, wuxuu diyaariyey warqadan oo baarlamaanka carbeed iyo dowladaha carabta oo baarlamaanka Soomaaliyeed uga mahadcelinayo, ayadoo u dhigan sida tan: معالي رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل فهمي السلمي المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقا لبيانكم الصادر من قبل البرلمان العربي الموقر عن جلسته الرابعة المنعقدة في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة ذات الصلة بالدفاع والتصدي عن صراع الراهن في المنطقة والهيمنة الاستعمارية للقوى الخارجية وأطماع الدول المجاورة، لا سيما دولة كينيا التي تسعى بكل وسعها إلى نهب ثرواتنا الطبيعية وقطع مساحة كبيرة من مياه الإقليمية الحدودية للصومال، وبإعدادها ورسمها خريطة مزيفة لتضليل الجهات المعنية والرأي العام وعدم التزامها والتفاعل بالقوانين الدولية والإقليمية وسيادتها الكاملة، منتهكة بكيانها ووجودها ووحدتها الوطنية في كافة المجالات. انطلاقا عن هذا الإحساس الثمين التضامن العربي المخلص، فإننا نتقدم إلى معاليكم غاية الشكر والامتنان على هذا الشعور السامي الأخوي المخلص، فإننا نتقدم إلى معاليكم غاية الشكر والامتنان على هذا الشعور السامي لتحقيق أهداف البرلمان العربي
ومن أجل دعمه في المشاركة الفعالة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لدول العربية والنهوض في هذا الإطار لتستعيد الصومال مكانتها الأمم العربية والعالم بصفة خاصة. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. الدكتور محمد مرسل شيخ عبد الرحمن رئيس مجلس الشعب الصومالي الفدرالي، والله ولي التوفيق والهداية.